waxaa maanta la soo xiray aqoon isweydaarsiga sanadlaha 8aad ee cilmi baarista Soomaaliyeed Axos 2021 oo uu soo qaban qaabiyay Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed ee ASOS oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho. Aqoon isweydaarsigan oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa ka qayb qaatay aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal ka kala tirsan jaamacadaha, xarumaha cilmi baarista iyo guud ahaanba waxgaradka bulshada oo kala jooga Geeska Afrika iyo qurbaha. Aqoon isweydaarsigani wuxuu isugu jiray qayb fool ah iyo qayb ku bixisay aaladda Zoom-ka iyo barta Facebook. Sanadkan waxa uu kaga duwanaa sanadihii ka horeeyay in ay fursad u heleen ardayda dhigata jaamacadaha inay ku soo bandhigayeen daraasado ay sameeyeen madasha aqoon isweydaarsiga. Agaasimaha Machadka Daraasaadka Soomaalida ee ASOS Mustafa Fayruus ayaa ka waramay cilmi baarisyadii la soo bandhigay. Aqoon isweydaarsigeena 3 maalmood inoo socday wuxuu isugu jiray 3 qaybood oo waaweyn ayuu ka koobnaa. qayb waxay ahayd kulamada foolka ah aynu wada joognay daraasadaha kala duwan lagu soo bandhigayay. qaybta labaadna waxay ahayd isaga oo aaladda Zoom-ka iyo Facebook iyo baraha bulshada ku baxaya oo isna habeenkii ama fiidkii baxayay. sanadkan waxaan ku soo kordhinay qayb kaleeto oo saddexaad. qaybtaas saddexaadna waxa weeyaan bandhiga daraasaadka ardayda waxaan loo yaqaano poster presentation ama project presentation oo ardaydu ay sameynayeen. saddexdooduba waxay ahaayeen 3 faa'iido leh oo iskabayay oo aqoon isweydaarsiga ka qaybgalkiisa iyo soo bandhigistiisa iyo intaba kaalin weyn ka qaatay. markii la eego inta aynu wada joognay 3 maalmood waxaa la soo bandhigay 22 daraasadood oo kala duwan. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii cilmi baarista tan iyo markii ay furantay ayaan la kulanay. waa Firdaws Maxamed Axmed waxaan ahay ardayda Jaamacadda Muqdisho ka dhameystay ilaa heer master ah. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan ee noo soo qabatay Machadka ASOS iyo Jaamacadda Muqdisho. waxaan ka faa'iidnay aqoon fara badan. barnaamijkan wuxuu taawanayay dhinacyo fara badan oo quseeyo wadankeena ha ahaato waxbarashadii, siyaasadii, bii'adii, dhinac walba ayuu taawanayay taariikhdii. marka aad ayaan ugu faa'iidaystay 3 bari aan joogay. wax badan ayaa ii soo kordhay. waxa kale aan ka faa'iidaystay insha Allah sanadka dambe inay igu aragtiin rajeynaya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Maxamuud. barnaamijkan 3 maalin ayuu noo socday. wuxuu noo soo bilowday 7 maantana waa 9. waxyaabaha barnaamijkan aan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah casharo badan iyo mowduucyo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay. waxaa ka mid ahaa siyaasadda, dawladnimada, waxaa ka mid ah taariikhda gumaystayaashii hore. waxyaabaha si gaar ah aan uga faa'iidaystay waxaa ka mid ah arrimaha xiriirka yani wadamada kale ee Soomaaliya leedahay sidoo dawlad dhiska Soomaaliya uga qayb qaadanayo. magacaygu waa Hana Xasan Macalin Maxamuud. waxaan ka mid ahay ka soo qaybgalayaashii barnaamijkii 3 maalmood socday ee aqoon isweydaarsiga ahay oo ku dhisnaa aqoon iyo horumar ama knowledge and development soo bilowday 7 bisha December 2021 dhamaadana maanta oo Khamiis ah. waxyaalihii intii aan joogay 3 maalmood aan faa'iiday wax badan aan faa'iidaystay. magacayga Zaara Maxamed Bakri waaye oo ka socota Jaamacadda Muqdisho. aad ugu mahadsanaa inaan barnaamijkan ka soo muuqdo. horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa Machadka ASOS oo barnaamijkan noo martigelisay iyo Jaamacadda Muqdisho iyo dhammaan cilmi baarayaasha. barnaamijkan aad ayaa ugu faa'iidaystay waxyaabo badan. waxaa looga hadlayay dhanka waxbarashada, waxaa looga hadlayay dhanka horumarinta deegaanka, sidoo kale waxaa laga hadlayay taariikhda Soomaaliya. waxyaabo badan ka faa'iideysanay oo cilmi baarayaasha ay soo bandhigeen. maasha Allah. Xasan Sheekh Xasan, kusimaha gudoomiyaha Jaamacadda Muqdisho ayaa soo gunaanuday aqoon isweydaarsiga sanadlaha 8aad ee cilmi baarista Soomaaliyeed. aqoon-yahanada iyo cilmi baarayaasha u dhabar adeegay maalmihii 3 ahaa in ay si wanaagsan u kala faa'iideystaan una soo bandhigaan aqoontii iyo horumarkii loo baahnaa oo halku dhiga barnaamijka uu ahaa. sidaas oo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed Ustaad Mustafa iyo tiimkii la shaqeeyay dhammaantood. runtii waa wax yani aad iyo aad
loogu baahan yahay oo muhiim ah oo Soomaaliyana maanta ka saari karo culeysyada haysta oo maanta aan wada ognahay dhammaanteen meesha uu ka yimid in ay tahay dhinaca aqoonta. In ka badan 20 daraasadood oo ku saabsanaa arrimaha waxbarashada, deegaanka, kheyraadka, dhaqaalaha bulshada, saameynta safmarka COVID-19 iyo kuwo kale ayaa lagu soo bandhigay muddadii 3 maalmood ee uu socday. Daraasadahanina waxa ay ka duulayeen halku-dhigga sanadkan oo ahaa aqoon iyo horumar.